dibadda Soomaaliya gudoomiyaasha ururada haweenka dhalinyarada fanaaniinta dhammaan waxaa lagu salaamay qof walba maqaamka uu ku fadhiyo meesha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka ugu horeyso waxaan u mahadcelinayaa walaalaha qaaliga ah ee xafladdan ka soo qayb galay yeeristaan u yeernay iyo ajiibka ay ka soo ajiibeen imaatinkoodii waktigooda qaaliga ah ay inoo soo hureen si kalgacal iyo kalsooni ay ku jirto ay halkan aaga soo qayb galeen oo ku mahadsan yihiin. waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa xafladda soo dhaweynta iyo taageerada xildhibaan maxamed cabdullaahi baafo in ay noqoto xaflad qaran aysan ahaanin xaflad beeleed. taasna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana ku mahadsan yihiin walaalihii qabanqaabada lahaa ee ka dhigay xafladda xaflad qaran. waxaan rabaa inaan guud maro Soomaali weyn dhagahoodii wax badan ayaa ku dhacay amba run ha ahaadaan ama been ahaadaan. caawa waxaa idin taagan oo idinla hadlaaya kursigan uu ku fadhiyo maxamed cabdullaahi baafo halkii uu ka yimid iyo ciddii soo guddoontay. ahaado waxaan u mahadcelinayaa safiirka Soomaaliya u fadhiya UK ilmaan hadal kuma jiro. marka waxaan rabaa inaan guud maro kursigan wuxuu ka yimid carto. waxaa idin hortaagan caawa ninkii doorjooga ahaa kursigan soo guddoomay isagoo weliba laba ah. kadib marxalado badan ayuu soo maray isbedbeddel kadib wuxuu hadda maasha allah ilaahay mahadis gacantooda ku soo celiyey beesha jaziira oo ka soo bilowday 2000 dowladdii cabdiqaasim. kadib mar labaad ayuu soo noqday kursigii insha allahu tacaala sidii hadalka hore loo yiri kursi kale ayaa maqan oo isna mustaqbalka aan sugayno inuu gacantayna ku soo noqdo. waxaan rabaa inaan la dardaarmo xildhibaan maxamed cabdullaahi baafo. waxaan kula dardaarmayaa cadaalad, waxqabad dhab ah, gargaarka danyarta ah guud ahaan gaar ahaan deegaanka oo ka soo jeeda oo ah shabeellaha hoose. waxaan rabaa inaan u duceeyo waxaan ugu duceynayaa mustaqbalka dhow inuu ku soo baxo dowladda soo socota ee golaha wasiirada insha allah. mustaqbalka fogna waxaan ugu duceynayaa inuu noqdo hogaamiyaha Soomaaliya. waxaan ilaahay ka baryayaa inuusan isoo sharxin isaga ee uu noqdo mid ummadda dooratay. waxaan kaloo u duceynayaa inay Soomaali tiraahdo maxamed cabdullaahi baafo kulmiyow kaalay. kulmiyow kaalay macnaheedu waxa waaye qofkii loo bogo waxqabadkiisa, cadaalad falkiisa, weerarnimadiisa, daacadnimadiisa qofkii loo bogaa waxaa la yidhahdaa kulmiyow kaalay. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu noqdo maxamuud kii la mahadiyo insha allahu tacaala. waxaan ku soo xirayaa xafladda ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo Soomaalina aan u duceyno allah ka dhigo mid hoggaan oo daacad oo wadada toosan ku toosiya inuu ilaahay u sahlo inay Soomaaliya mustaqbalka dhibaato laga sheegay ay noqoto dal barwaaqa oo bashbasha oo barwaaqa. maxamuudna waxaan kula balamayaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa daacad u noqdo
إن شاء الله تعالى سنة ويقيني حتى تاريخ يرآن هوسك حريقة جزيرة waxay ku taala gobolka Shabeellaha Hoose kursigan waa kursi banaadiri lixda xubnood ee banaadiri kursi kamid ah waa doorashadiisa ayaa waxay noqotay Baraawo sheekha uu ka soo farcamay taariikhda markaan dib u raaco waa 1500 sano ka hor ayuu farcaas reer jasiira oo dalka Soomaaliya joogaa مرحلة بدأ يوصل مري شعب ترى الجزيرة وحيد دجان صومالي وطن أنت اللي بدن سيد الشمالة هوسة دجمل أفقوية جزيرة مريري مركا بايداو بارديري كوريولي إسمايو جزيرة إيو حمر marka taariikh faqdeer ayay leedahay mid halka lagu soo koobi karo maantii caawiye bari maaha insha Allah ta'ala khayr baa yarjeenaya kulankiis dama waxaan rajaynaynaa inaan soo imaano maxamuud maxamed cabdullaahi baafo oo madaxweyne ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay aad buu mahadsan yahay mudanayaal marweyn mar kale idinku waa mahadsantihiin xafladeeda caawintaas ay noogu eg tahay intaa wixii ka dambeeyo waa muusigii qofka ciyaarka duulaada